قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي كلنتي wanaagsan khayr sharafta leh waa Sayyid Cabdiraxmaan oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo kusoo dhawaada maanta iyo barnaamijka insha Allah khayray maanta barnaamijka waxaan uga hadli doonaa waxaad maqasheen maaragtay dowladahan horumaray sida maaragtay Mareykanka wadamadan EU-ga ruushka shiinaha iyo hindiya oo hadda iyadana ku daba xigta ayaa waxaad maqashay iyagoo yidhaahda khiyaaray spaceka ayaan tegaynaa ama hawada sare aan tegaynaa maraykankuna wuxuuba sheegtay inuu dayaxa tegey maaragtay 69 marka bal waxaasoo dhan baan baaraynaa waxaan insha allahu tacaala maanta la fiirinaynaa qur-aanku muxuu ka yidhi maaragtay waxa la yidhaahdo spaceka in dadku tegi karo iyo in kale sidoo kale maaragtay in dadku ku noolaan karo meerayaasha kale sida maaragtay Mars ay yiraahdaan meerayaasha kale yaan fiirinaynaa quraanka Allah subhanahu wa ta'ala muxuu ka yiri spaceka iyo in dadku ku noolaan karo meel aan dhulkan ahayn fariid سأل ogtihiin markii Allah subhanahu wa ta'ala xaawiye aabadan uu ka soo tuuray jannadii jannatan ciima jannatan cadni ay ku noolaayeen ee la keenay dhulka markii la keenay ee halkan la keenay waxa la yiri halkan baad ku noolaanaysaan halkan baad deganaanaysaan baa la yiri quraankan inta ka sheegi doonaa sida darteed waxaad ogaataan bilaadanku meesha ku noolaanayaan waa halkan meesha ku dhimanayaan waa halkan meesha yawmal qiyaamaha laga soo saarayana waa isla dhulka marka waxa weeye Mareykanka waxaad maqasheen inay yiraahdeen waxaan sameynay moon landing waxa la yiraahdo dayaxan tagnay yiraahdeen soo ma aha sida la isku raacay dayax maysan tagin waa been caddeynaan sooyaa waxaa jiray nin Hollywood oo filmaan samayn jiray oo la oran jiray Stanley Kubrick ninkaasi nin wuxuu ahaa Hollywood oo dhan waa shaydaan ogaada waa beenaalayaal noloshan adduunyada ayay dadku qurxiyaan sida uu shaydaanka Allah inoo sheegay inuu quraanka ku sheegay oo Allah quraanka nagu sheegay oo yiri shaydaan uu yiri adduunyada ayaan qurxin doonaa wax walbo maaragtay xunna wanaag baan wax wanaagsan mar uga dhigi doona marka Hollywood shaqadoodu waxay tahay waa shaydaamo inay dadka adduunyada qurxiyaan saana dadku ku wada gaaloobo soo waxa garateen ma kolka ninkaas ayaa wuxuu sheegay 1999kii maaragtay intuusan dhiman ka hor bilo ka hor in hay'adda arbixiyeenka Mareykanka maaragtay la yiraahdo NASA waa macnaha hay'adda spaceka America u qaabilsan hay'adda NASA inay u timid ay ku yiraahdeen niyow suuragal ma dayax inaan tagno dayax bilaadan ma tagi karo waxa jira si la isku raacay la yiraahdo Alan Belt oo dhulka korkiisa maaragtay electromagnetic ba maaragtay hadduu la idin roon yahay ku wareegsan oo ku samaysan kolka spacekii waxay yiraahdeen dayax ma tagi karno maaragtay dayax ma aadi karno waxay yiraahdeen adigu waxaad yeeshaa video noo samee oo macnaha wax feega oo beena noo samee inaanu ma taqaanaa aanu hadduu Ilaahay ku roon yahay ka dhigno video in nooga sameeyo movie wax saasa oo macnaha feeg nooga dhig been noogu samee inaan dayax tagnay kadibna 1969kii isaga ayaa ka caawiyay hay'adda NASA waxa la yiraahdo moon landing soo ma aragtaan inka Stanley Kubrick videoga waraysigaas boga Yusuf aan soo gelin doonaa link aan ka sameynaya videoga Yusuf waa ka asaas YouTube haddii arkaa way tirtirayaan inkii dhowr bilood kadib waa dileen kolka waxa weeye macnaha marka
suuragal maaha bini'aadanka maaragtay inay hawada tagaan waxba kama jiro waxaan oo dhan ee laydin sheegay waxa weeye hadduu ilaahay idiin royan waa been waxa koobaad hortaagan wuxuu yahay waxa koobaad hortaagan wuxuu yahay waxaan xataa garaafatiga la yidhaahdo waa amar ilaahay iyagu waxay ka yidhaahdeen wax kastoo kaca uu soo dhaca laakiin waa amar ilaahay waxaad ogaataa dhulku waa xabis baa la keenay bini'aadankan xabis bay ku nool yihiin wakti go-an baana la siiyey saan arki doonno yowmal qiyaamo ayay gaaladu caddayn doontaa in adduunyadaba ajal wakti loo gooyey waktigoodina ay dhammaysteen kolka waxaynay sheegtaan oo dhan waxba kama jiro wakti go-an buu ilaahay siiyey marka dhibaatada koowaad haystaa waxa weeye oxygiinta waxa la yidhaahdo maaragtay dhulkan keliya ayay joogtaa sababka bini'aadankana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u sameeyey inuu neefsado oxygiinta sababkeenu ama our lungs wax kalama neefsan karaan ka ahayn oxygen kolka dhulka markaad ka baxdo hawada koobaad eed gelaysaa waa nitrogen marka laga baxo waa hydrogen kolka iyo gaasas kale iyo intaasoo gaasoo kale intaasoo hawaa kasii dambaysa midna bini'aadan kuma noolaan karo waa sababta ayna maaragtay markay cirbaxeeno tagaan ay say sheegaan dee ay maaragtay meelaha soo socdaan waxaasna waa ka hadli doonaay ay maaskii oxygen tanka ku xiran bahalka dareyska ay gashan yihiin dareyska ay dharka ay gashan yihiin ee qufulan haan ama oxygen tanka ku dhex jira kolka wax alla waxay sheegaan oo dhan waa been waxba kama jiro marka insha allahu tacaala waxaan akhyaaraya soo hayaa allah subxaana wa tacaala wuxuu ka yiri spaceka bilaadan miyuu tegi karaa ayaan soo hayaa hadduu ilaahay yidhaahdo maasha allah markii xaawiya aadan ilaahay subxaana wa tacaala saari dhinaca rabaabay uu jannadii ka soo qaaday ee uu dhulkan keenay ee halkan la keenay fiirsada waxaa lagu yidhi suurat alacraaf ay ku jirtaa waa aayadda 25aad suurat alacraafna waa suuradda 7aad ee qur-aanka alle wuxuu yidhi subxaana wa tacaala acuudu billahi min ashaydaani rajiim qaala fiiha taxyawna wa fiiha tamuutuuna wa minha tukhrujuun alle wuxuu yidhi subxaana wa tacaala dhulkaan idin keenay ayaad ku noolaan doontaan dhulka dhexdiisa ayaanaad ku dhiman doontaan dhulka dhexdiisa ayaana laydinka soo saari doonaa hadalkaasuu run yahay soomaaligii lama sheegin qof bini'aadana oo space iyo mars iyo waxaynay andhehe moonka iyo meelahan waxaanay sheegtaan qof bini'aadan oo ku dhintay lama sheegin hadduu xataa ku dhinta meelaha hawada sare diyaarad kula qaraxdo meydkiisa dhulka kusoo dhaca ama badda ku dhaca oo xayawaanka badda ku jira cuna ama berrigu yimaadaa saas way arrintoodu soo ma aragtaan akhyaaray kolka waxay sheegtaan oo dhan waxa weeye waa been Elon Musk waad aragteen inuu yiri maaragtay shuttlekan samaystay space shuttlekan samaystay waxaasoo dhan dadkan hawada u diraya dadkan hawada u dhoofinaya dadkan maaragtaas waxba kama jiro waa xukun ilaahay baa bini'aadanka haysta waxaad ogaataa bini'aadanka markii xaawi aabaheen hooyadeen hore aan kasoo farcanay jannada alla kasoo tuuray dembigii ay galeen kadib halkan baa la keenay allana wuxuu subxaana wa tacaala halkan baad ku noolaanaysaan ood ku dhaqmaysaa oo guri iyo nolol laydinka dhigay halkan dhexdeedaanad ku dhimanaysaan waa dhulkan kadibna dhulka carrada ayaa laydinku aasi dhulka isla dhulkii dhexdiisa carrada ayaana alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala laydinka soo saari doonaa soo ma aragtaan marka gaaladan waxay sheegtaan macnaha free will inay haystaan xorriyad inay haystaan inay waa been waxba kama jiro nebiguna sal allahu alay wasalam xadiiska markuu yidhi addunya jannatu lkaafiri waa sijnat lmumin waxa weeye nebigu wuxuu sal allahu alay wasalam adduunyadu waa waxa weeye maxbuuska waa xabsiga mu'minka iyo jannada kaafirka innaga xabsigeenu waxa weeye macnaha dee shareecadii baa ku celinaysa oo wax alla wixii aad doontaa adduunyada kuma samayn kartid waa saas weeye macnaha shareecadii allah ku xakameynaysa oo ku qabanaysa gaaladana janna ay u tahay oo wax alla waxa rabeen bay samayn fiiri taas waa lidkeeda waa oppositekeeda inagu jannada waxay aakhiro waxaynu rabnaynu samayn dadka mu'miniinta ah allah inaga dhigay kowda alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala lahum maa tashaa'uuna wax alla waxay doonaan ee naftu ku hamido ayay muslimiintu leeyihiin oo aakhiro waxaad rabtaad samayn wax alla wixii qalbiga ku soo dhacwaad helaysaa laakiin iyaga waa xabsi ay aakhiro ku tahayo dee jahannamo waa xabsi oo kale allana wuxuu ku sheegay subxana wa taala suurat alxijr inay qolo leedahay maqsinay leedahay gaaladu aakhiro waa jeebaysan in xabsi bayna ku jiraan marka ogow marka nebigu sal alla slam leeyahy adduunyadu waa jannada gaalka iyo xabsiga muuminka waa saas gaal waxba kuma haysto marka waxaan doonayaa marka inaan intaa isla aragnaan u malayn haddaan mar kale ku celiyo moon landing waxay dhahaan maraykanka hadday tegey waxba kama jiro waa been erigan nasa oo xarfahan u taagan hay-adda aerospace ee maraykanka
marka la soo qaabiyo luqadda Hibrowga waxa weeyaan to deceive waa khiyaamo waxaan oo dhan waa been waxba kama jiro soo waxa garateen maaha kolka ninkii khashifay inay sheekada ula yimaadeen waa ay dileen waa kaan idin sheegay waraysigiisiina boga Yusuf ku jira kolka waxaan doonayaa marka aayado kale inaan soo isla spaceka ku saabsan waxa weeye aayadani waxa weeye suuratul ancaam aayadda 125 الله وحده سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام الله وحده سبحانه وتعالى قفك إلهي دوني سبحانه وتعالى إنه هنونيو يشرح صدره للإسلام قلب كيسة حبت كيسة أيا وحلو فرا إسلام لماذا هنونك يهو جانسك إلهي إرجع الإسلام معناه وحويا وسبميشن وهو جانس إلهي قفك الله سبحانه وتعالى وحو يريدون إنه هنونيو قلب كيسة أيا الله فرا إسلامك سمع الله سبحانه وتعالى وحكله يري ومن يريد أن يضلله ومن يريد أن يضله قفك الله دوني سبحانه وتعالى إنه اللمينا يجعل صدره ضيقا حبت كيس قفك الله دوني إنه اللمينا حبت كيس أيا وحلقة دقاء ضيقا عريري حرجا أو أدق أنا عريري أدق وصدي نفت كل دقاء سوكلا يا لقى دقاء oo macnaha xabadkiisi baa maaragtay waad fahanteen sidii neeftu ku celiso kale ciriiri baa laga dhigaa daqiiqan wax ciriiriya oo xirxiran oo adag baa laga dhigaa marka Allah tusaale uu siiyay subxaanahu wa ta'ala qofka marka gaalka ah ee xabadkiisii laga adkeeyay ilaahay maaragtay uu luminayana wuxuu yiri qofkaasi kaanama waaba isagoo yascadu fi samaai isagoo samada ku dhex socda macnaha qofku alla luminayo xabadkiisa ayuu adkeeyaa oo cidiidina ka dhigaa sidii isagoo ku dhex socda samada halka way la fahanteen soo ma aayadaas okay marka gaalada waxaad ogtiin akhyaaray waxay iska dhigaan maaragtay space walk waxa la yiraahdaa ayay sameeyaan waxaad aragteen iyagoo maaragtay haddii la idin rooyay sameynaya waxa la yiraahdo space walk soo ma aragtaan spacebook waxa weeye kaanama yascadu fi samaa aayad quraanka sidii isagoo la yiri samada ku dhex soco samadu waa spaceki waa isleeyihiin cirka ku dhex soco la yiri oo kala soo ma okay alla wuxuu subxaanahu wa ta'aala gaaladu dadku ilaahay lumiyay ee gaalada ah xabadkooda waa la adkeeyey ciriirin waa la geliyey sidii iyadoo la yiri spaceka ku dhex socda waxaad laakiin aragtaan iyagoo sheegta inay spaceka ku dhex socdaan aayadan space walk waxay yiraahdaan waa jeestes ay ku jeestesayaan aayadan hadda idin sheegay ee ah qofka gaalada uu ilaahay luminayo xabadkoodu adkeeyaa ciridii buuna ka dhigaa wuxuuna ka dhigaa waxaa lagu adkeeyaa sidii isagoo samada ku dhex socda oo kale ereyga yascad waa Soomaali uu yahay waa socod soo ma aragtaan marka iyagu waxay yiraahdaan bal fiiri si ay isku dayayaan aayadiina beeniyaan waxay yiraahdaan space walk spacekan ku dhex soconnaa anagu laakiin fiirsada marka space kuma dhex socdaan wuxuu waa been marka koobaad shuttle-ka ama maaragtay space craft-ka ama dayax-gacmeedka ay saaran yihiin ogaada hadda wixii atmosphere-keena ka sarreeya kora wax ma haabaan korna ma aadi karo waa heehaab macnaha korna ma aadi karo hoosna ma soo dhici karo sidaa darteed wuu taagan yahay soo maaha kadib maxaa dhacda marka waxaa dhacda xarig baa ku xiran xarig markii kuleeyin space walk baan sameynaynaa xarig baa iyaga ku xiran oxygen tankana suudka iyo labiska ay gashan yihiin buu ugu jiraa soo khayare ma aragtaan kolka xariggii bay dadka ka qariyaan ku xiraa waxayna iska dhigaan inay spaceka ku dhex socdaan soo ma aragti wuxuu dhan inuu been yahay aan sii soconno marka alla wuxuu subxaanahu wa ta'aala marka وأساس الله سبحانه وتعالى وهذا صراط ربك مستقيما أن الله سبحانه وتعالى كاسنا واجدك إلهي توصل قفك هنونيني ويا الله سبحانه وتعالى قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون قد حقيقي فصلنا والدين عطيني والدين فصيرني ووالدين كالدقدقني الآيات
aayaadkii liqowmin yadakaruun qoom waan samaya waa loo kala dhigdhigaa aayaadkii alla subxaana watacaala isagoo ka hadlaya waa kuwii hanuuniye wey muuminiinta alla socdaya alla wuxuu yidhi subxaana watacaala lahum daaru salaami kuwaas muuminiinta ee la hanuuniyey ee qalbigooda ishrax lilislaam uga dhigay qalbigooda uu jilciyey oo uu dhexgeliyey uu waasiciyey diinta islaamka lahum daaru salaami waxay iyagu u sugnaatay oo heli doonaan aakhiro daaru salaami gurigii nabadgelyada cinda rabbihim rabbigooda agtooda waa aakhiro gaaladana xusuusta alla wuxuu yidhi subxaana watacaala suu'a daari baa la yidhi iyaga suu'a daari ereyga daar buuggigan kitaabka af soomaaliga qur-aan ku jira uu ku jiraa daar waa daar macnaha soomaalida keliya isticmaasha carabtana hadda ma isticmaalaan waa guri weeye macnaha marka alla wuxuu yidhi subxaana watacaala kuwaas waxaa u sugnaatay daaru salaami cinda rabbihim rabbigooda agtooda macnaha kuwa muslimiinta way aakhiro alla wuxuu yidhi subxaana watacaala wahuwa weliyuhum isagana weligooda ah gaardiyaankooda ka xafidaya ka ilaalinaya waa allah subxaana watacaala muxuuna u ilaalinayaa bima kaanuu yacmaluun waxay samayn jireen darteed mu'miniin bay ahaayeen ilaah bay rumeeyeen adduunyada sijni bay u ahayd adduunyadu braysan bay u ahayd xabsi bay u ahayd shareecada alla kamay tallaabsanayn wax alla waxaa allah amray waa la imaan jireen wax alla wax ka reebeena uu ka reebeena way ka hari jireen dabcanna alla way ka baqi jireen intay awoodaan xusuusta kadib maxaa dhacaya marka kadib waxaa dhacaya marka kuwii gaalada ahaa ee ay oran jiray spacekan tegana teknolojiyada lahaa iyo jinkoodii iyo balaayadoodii iyo wixii oo dhan jin iyo insiba waa lasoo shiriyey kadib alla wuxuu subxana watacaala waa suurat ancaam oo ah suuradda 7 ee qur-aanka aayadda 187 alla wuxuu subxana watacaala wayowma yaxshuruhum maalinka lasoo shirin doono jamiican dhammaantood marka lasoo shiriyo oo meesha laskugu keeno kadib waxaa lagu dhihi doonaa yaa macshara aljinni yaa macshara aljinni isu soo bixi jinkii badnaayow qad istagtartum waad ka badsateen min alinsi dadkii waad ka badsateen baa layidhi xumaantii bay ka badsadeen fasaadkii bay ka badsadeen adduunyadii bay ka badsadeen dee wayba xukumi jireen in badan oo jinka ka mid a waa qur-aanka meelo kale lagu sheegay ee suuratlquluuxiya oo kale waxaa jiray insi magan gala jinka soo ma aragtan akhyaaray kolka waxaa la yidhi qad istagtartum min alinsi dadkii waad ka badsateen oo macnaha saasay eedaydeen jinkiyo waqaala alawliyaau min alinsi kadibna waxay waqaala alawliyaau min alinsi kuwii iyaga ilaalin jiray kuwii saaxiibka la ahaa ee dadka ka tirsanaa kuwii jinka saaxiibka la ahaa ee bini'aadanka ka tirsanaaba waxay yidhaahdeen iyagoo hadday waxay yidhaahdeen rabbanaa istamtac bacdunaa bibacdin ilaahu qaarba qaarkanaga kale ayuu ka dheereeyey ayuu ka badsaday oo uu maaragtay ka xoolo batay uu ka boqortooyo badnaa waxaasoo dhan istamtaca macnaha ay ka raaxo badnaayeen ay ka xoolo badnaayeen waxaasoo dhan bacdunaa bibacdin qaarba qaarkanaga kale waa adduunyada markay joogeen soo ma aragtid macnaha waa kuwani waa madaxdii gaalada ee bini'aadanka ay jinka ahaa fiirsadayaa kadibna waxay yidhaahdeen marka aayaddan doonaya waatan inaad aragtaan waxaan idinku yidhi bini'aadanka gaaladu waxay sheegtaan xorriyad iyo free will macnaha free will yaroo gaaban baa la siiyey fiir xarig baa ku xiran xarigiina waa ka maanta iyo arkayaan iyagii baana muujinaya adduunyada maaragtay inaysan awood waxba ku lahayn ee wax walba waktigii nolosha intay noolaayeen iyo waxay samayn jireen waxaasoo dhan inuu ilaahay siiyey waxay yidhaahdeen wabalagnaa ajalanaa waana gaarnay rabbi ajalsii iyo waktiga aad noo goysay inaan noolaano oo maanta maxkamadii baadna keentay alladii ajalta lanaa taasoo ah ajashii ama waktigii aad noo goysay annaga waktigaad ilaah subxaana watacaala adduunyada nagu siisay waanu soo dhammaysanay waanu gaadhnay halkanaa nimid maanta miyay taa ogol yihiin maanta miyay odhanayaan nimcadani waxaan ilaah baana siiyey wakti go-aan baan leenahay saas shaydaan markuu yidhi qaala faandirni ilaahu iga dhig kuwa dib loo dhigo waxaa la yidhi waxaan dib kuu dhigay ilaa waktin macluum wakti go-aan baan ku siiyaa la yidhi marka waxaan nool oo dhan ee jiniya insiya maaragtay gaaladan weliba gaaladan xun waxa weeye waxay haystaan baa iska yidhi awoodda ilaahay baa le wakti go-aan baa la wada siiyey mana rumaynayaan maanta laakiin maanta fiiris ay u hadlayaan marka waxay yidhahdeen ilaahu waktiganaga aadna siisay waanu soo qaadanay ead noo goysay maantana waana kan halkaanaan taagannahay kadib qaala alle wuxuu ku yidhi subxaana watacaala annaaru mathwaakum waa yahay naar baa gurigiinna ah
cadaabkaad gelaysaan baa la yidhi maanta khaalidiina fiiha idinkoo ku waari doona weligeed naarta dhexdeeda ilaa maa shaa allah intuu ilaahay doono ma ahane alle wuxuu kusoo gebagabay aayadan ina rabbaka xakiimun caliim rabbigaana waa xikmad badane cilmi badan soo waxaa garateen ma ah alle wuxuu yidhi subxaana watacaala haddaan sii wadano wakadalika nuwaliya bacdu daalimiina bacda saasoo kalean daalimiintii weli uga dhignay saaxiibo iyo kuwo xukuma uga dhignay qaarba qaarkooda kale daalimiinta wakadalika saasoo kale nuwali yaan weliyo uga dhignay kuwa macnaha la xukuma kuwa madaxuwa kuwa saasa macnaha iyagiibaa isxukumaya bacdu daalimiinta qaar ka mid a bacda kuwooda kale waayo bimaa kaanuu yagsibuun waxay samayn jireen ee kasban jireen markay adduunyada joogeen soo ma aragtid kadib jini insigii gaalada ahaa uga hadda waa la kala xukumay addoomadan kuwan waa kuwii gaalada ahaa jini insiga ahaa ayuu marka alla la hadlaya subxaana watacaala waxaa la yidhi yaa macshara aljinni walinsi kulankan jin iyo insiyow alam ya'tiikum rusulun minkum miyaysan idin iman rusul idinka mida idinka waa rusushii alla soo diri jiray jini insiga rusulun minkum rusul idinka ka mid a inta adduunyada joogteen miyaysan idiin iman jini insiyo kulan weynahan dadkan badan ee jini insigohu miyaysan rusul idinka idinka mid a oo luqadiina ku hadlaya oo carabkiina ku hadlaya oo hebel u taqaanaan ina hebel u taqaanaan miyaysan idiin iman yaa lagu yidhi rusushaasoo yaqusuuna idinku akhriyayey oo idin sheegayey oo idinku qisoonayey calaykum idinka aayaatii firi ilaahay baa subxaana watacaala life ula hadlaya gaaladii jini insiga ahayd alle wuxuu ku yidhi subxaana watacaala yaa macshara aljinni walinsi jini insiyo kulan weynahan jini insiyow alam ya'tiikum rasulun minkum miyayna idiin iman rasul idinka idinka mid a rusushaasoo yaqusuuna idinku akhriyaya oo idinka qisoonaya oo idin sheegaya dacwadii hanuunkii waxa dhan kulli wax walba idin sheegaya calaykum idinka idin sheegaya aayaadkayga idinka digi jiray oo idin sheegi jiray miyaysan rusushaasi idiin iman rusushaasoo allay soo hadalka sii wada subxana watacala wuxuu yidhi wayandiruunakum rusushaasi waxay kaloo idinka digi jireen miyaydan iman rusushii idinka digta wayandiruunakum liqaa'a yowmikum haada kulankiinan maanta rusul idinka digi jirtay miyaysan hore idinku iman kay Elon Musk u sheegiyo arbixiyeenadan iyo waxaan jinka la hadliyo waxaan taajiriintii waxaan oo dhan iyo fiiri waxani waa beenaalayaal shaydaan bay raacaan iyagii shaydaankii baa maanta la haystaa jinku ogaada shaydaanku waa qayb jin ka mid a waa la haystaa ilaahay baa haysta abuurtay subxana watacaala wuxuu yidhi miyayna rusul idiin iman idin ka mid a oo aayaadkayga idinku akhriya aayaadkayga idin tusa isla mar ahaantaana idinka diga kulankan maanta allay hortaagan yihiin liqaa'a yowmikum haada kulankiinan maanta way hadleen marka qaaluu waxay yidhaahdeen shahidnaa calaa anfusinaa naftanadii baan ku markhaati kacnay waxay ku markhaati kaceen wax kalaa laga soo hormariyey aan rabo inaad aada u fahantaan waxay yidhahdeen qaaluu shahidnaa calaa anfusinaa naftanadii baan ku markhaati kacnay alle wuxuu subxaana watacaala waqarathum lxayaati dunyaa intaan jawaabteedii allay noo sheegin subxaana watacaala inay macnaha isku markhaati fureen oo ay ku markhaati kaceen waxa ay ahaayeen adduunka markii joogaan alla wuxuu subxaana watacaala waqarathum lxayaati dunyaa noloshii adduunyada ayaa gaaday oo maaragtay dhagartay adduunyadii baa khiyaantay adduunyadii baa dhagartay ogaada hadda ereyga adduunya carabigii hore waxa weye tii dhoweyd suurad qur-aankuna ku jiraa waxa dhow baa la yidhaha adduunyadu waa wax dhow wax qiimala ma aha ha isku mashquulin shaydaankii kugu shaqaysan sare dhaadheer iyo lacagii mal waxbaa ka fikirin haddii kale saasaad u hooyi wallaahi kolka waa kan marka jawaabtoodu waa la sheegay subxana watacaala washahiduu mar labaad baa la soo celiyey calaa anfusihim washahiduu calaa anfusihim naftoodii bay ku markhaati fureen annahum kaanuu kaafiriin in adduunyada markay joogeen ay ahaayeen gaalo lacagtoodii maalkoodii waxoodii oo dhan waxba uma tarin markay meesha tageen yay dhahaan ilaahay waktigaadna siisay waan soo dhammaysanay wax walba saas naftanadana maanta waxaan maaragtay markhaati ka nahay inaanu rabbiyow raxmaanow ka mid nahay kuwa gaaloobay adduunkana markaan joognay waxay yidhaahdeen gaalaanu ahayn kolka
laakiin maanta waad aragtaa macnaha say u shidan yihiin. Elon Musk waad aragtaa wuxuu leeyahay Marsaan tegi kanaan tegi waxaas istaagiisu ku korsadaa hiinows inuun tegi karin run ahaantii waa riwaayad iyo been ay dadku u dhigayaan waxaan westernka iyo Hollywoodka iyo waxaan dhan oo la yidhaahdo kulli waa been. Alla wuxuu yidhi subxaana watacaala aayadii bilowga ahayd في وقال فيها تحيون وفيها تموتن ومنها تخرجون إذا تكون والله الإنسان بالي الدنيا إذا تكون لمن دونتان إذا اللي تكسر صاري كل إلهي سبحانه وتعالى آيات كلا سوكر رموحي الدنيا دون جبي جد وحكى لماها إلا لهو واللعب مدى دالو هي عيار معاني قال هذه الشيطان كان وحيلو من كرام باللبيان وحيدين الشيطان ودن وابين تاريخ إذن الشيطان وحبا كمان جرو wax alla waxay sheegay dadka yiri bilaadanku wuxuu ka soo jeedaa ayb fiiri seed ku rumayn qof yiri bilaadanku wuxuu ka soo jeedaa ma taqaana ayb soo ma taqaana macnaha ayb family waa dadkan maaragtay daayarhadan dad way ka hay hore u jiri for example hadda gorilla oo kale ayb family ku jiraan si xalay iyo chimpanzee-ga waxay dheen kan ugu soo jeedaa oo waxay qariyaan xaawi aadan yaa ka dambeeya shaydaan waayo shaydaan ma doonayo in dadku ogaadaan dagaalkii dhex maray isaga iyo xaawi aadan iyo wixii dhex maray macnaha uu sababtooda lahaa in jannada laga soo tuuro haddii bilaadanku taa ogaadaan shaydaanka cadowimadiisii arkay wayna ku khilaafi kolka waxaan ay sheegaan oo dhan waa been dayaxay tageen waa been spacekay sheegtaan waa been gebigoodu dhan ba khiyaaray waxa waaye waxaad ogaataa waxay ku nool yihiin لاي الكذب يبقوا الكذب بين وبين صح قرتن ما مركا إن شاء الله تعالى أنت ساخير وسوكوبا هي إن مارك 10 كمان وحكم أنتي كنا نسود وين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.